waxaa sii kordhaya digniinaha amni ee la bixinayo iyo qaraxyo laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. qaraxa isaga ii sheegay haddana isaga igu dilay Soomaa. Soo dhawaada saaxiibayaal, xogtan ayaan halkan doonayaa inaan idin kula wadaago waxa ay yihiin digniinahaas iyo sidoo kale waxa laga digayo iyo al-shabaab oo la sheegayo inay qorsheynayaan weeraro ay ku fuliyaan terroriska waxa loo yaqaano ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. haddii uu muuqaalka idin soo gaarana si shargareeyo saaxiibadan la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidiina noogu reeba saaxiibayaal. aynu ku bilownay qaramada midoobe shaqaalaheeda ku sugan Soomaaliya waxaa muddo toddobaad ka hor lagu wargeliyay inay yareeyaan isu socodka sidoo kalena shacabkii ay xiriirada kala duwan la lahaayeen ee caasimadda ku sugnaa sidoo kalena ay yareeyaan goobaha ay tagi jireen. waxaana sidoo kale la faray in haddii ay arkaan wax u eg daroon diyaaradeed ama diyaarad daroon ah oo laga yaabo inaysan duuliyo lahayn oo ay shabaab ku yihiin oo qaraxyo ay doonayeen inay ku fuliyaan ay raadsadaan gabaad adag. iyadoo arintaas ay jirtay haddana waxaa jira oo la tilmaamay inay soo baxayaan digniino kale oo hor leh oo UN-ka ka yimid. ammaanka goobaha dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoona hareeraha madaxtooyada guud ahaanba loo diiday in dadka sidii ay hore ugu socon jireen ay ugu socdaan. ciidamadii madaxtooyada ee ilaalada ka ahaa ayaana amar la siiyay iyadoona guud ahaanba inta badan wadooyinkii ka bixi jiray madaxtooyada iyo kuwii geli jiray intaba oo ay dadka qaarkiis lug ku mari jireen la xanibay oo 24 saac ee la soo dhaafay ammaanka Villa Soomaaliya si weyn loo adkeeyay. xogaha soo baxaya saraakiil amni waxa ay sheegayaan in arintan ay timid kadib markii digniinahaas ay soo baxeen lagana cabsi qabo in shabaabku ay tilmaameedsadaan goobaha hay'adaha ammaanka ee caasimadda iyo kuwa dowladda intaba. waxa wararku ay sheegayaan in shabaabku gawaari ay ku soo rareen waxyaabaha qarxa laga yaabo ama laga cabsi qabo inay caasimadda soo geliyaan oo waliba gudaheeda lagu dhex farsameeyo ama inay adeegsadaan diyaarad drones ah. nuqul ka mid ah kuwa ay soo saareen hay'adaha xalana jooga ee fadhigoodu uu yahay ee nabad ilaalinta u jooga ayaana arintan muddo toddobaad ka hor soo saaray waxaana shacabku ay muujinayaan walaac dhinaca ammaanka ah iyadoona ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo kuwa xarumaha dowladda guud ahaantoodba la faray amaba la siiyay amaro ah in ay xiraan goobaha muhiimka ah ee laga yaabo inay weeraradaasi ka dhacaan. markii ay soo baxday digniintaasi qarax ayaa ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku dhamaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira sidoo kale qaarkood lamaanayaal ay ahaayeen. waxaana la soo warinayaa in hadda xaalku uu yahay mid laga fikirayo sidii looga hortagi lahaa xaaladahaasi ammaan ee jira. dadweynaha qaar waxa ay qabaan in hay'adaha xalane fadhiya ee UN-ka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ay laftarkoodu iyagu qayb ka yihiin qaraxyada caasimadda ka dhacaya. qarax uu sheegay haddana uu nagu dhacaa hadduu sheegay uu og yahay buu naga qabto wax ammaan shaqo ammaan shaqo kumal qaraxa isaga ii sheegay haddana isaga igu dilay Soomaa. mid ka mid ah odayaasha caasimadda ku sugan oo isagu si kulul ula hadlay madaxda qaranka iyo sidoo kale kuwa hay'adaha ATMIS ee ku sugan xalane ayuu ku sheegay in iyagu laftarkoodu ay qayb ka yihiin kuwa ATMIS-ka loo yaqaano ammaan darrada caasimadda ka jirta iyo qaraxyada lagu dhameynayo shacabka Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale sheegayaa in hadiiba qarax ay sheegayaan ama xaaladaasi amni darro ay jirto ay sheegayaan inay muhiim ahaan lahayd inay hay'adaha ammaanka dowladda ku wargeliyaan halka la filayo in la beegsado iyo cidda markaasi doonaysa inay beegsato iyo sida uu u dhacayo wax walba. laakiin inta badan ma dhacdo oo kaliya shacabka Soomaaliyeed waa lagu wargeliyaa iyadoo ay arintaasi jirtana digtoonaan dheeraad ah oo ay shacabku muujinayaan misna ay qabaan ma jirto maadaama inta badan caasimadda ammaankeeda ay xaqiijiyeen hay'adaha dowladda si gaar ah ciidamadii ammaanka caasimadda gacanta loo geliyay ee booliisiya militaro ee lagu soo tababaray wadanka Uganda. xilligaas wixii ka dambeeyay caasimadda waxaa ka mamnuuc ahaa hubka culus iyadoona mararka qaarkood baaritaano adag ay sameeyaan hay'adaha ammaanka si gaar ah ciidamada qaybahooda kala duwan. kuwa hay'adda nabad sugidda ayaa si xoog ah amaba si xoojiyay ammaanka sidii ay u xaqiijin lahaayeen cid walba gaari walba iyo mooto walba ayaana baaritaano lagu sameeyaa iyadoona intaasi oo dhan ay dhacayaan ayaa haddana mararka qaarkood waxaa dhaca falal liddi ku ah ammaanka. dhammaan hoteelada ka ag dhow Villa Soomaaliya ayaana la sheegay in lagu wargeliyay in amaba la siiyay habraacyo ay u marayaan
xaqiijinta ammaanka goobahooda ganacsi iyadoo sidoo kale la siiyay habraacyo ay ku diiwaan gelinayaan dadka soo degaya hoteelada oo waliba kuwa deganna ay ka soo warbixiyaan halka ay ka yimaadeen waxa ay yihiin iyo halka ay u socdaan intaba xaaladda caasimadda ayaana 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo ahayd mid baaritaano xoogan ay ka socdeen welina waa ay sii socdaan laakiin su'aalaha la isweydiinayo waxa ay tahay hadiiba shabaabku ay qaraxyo caasimadda ka dhex sameynayaan halkee ayay doonayaan inay ku weeraraan halkeese lagu sameynaya cidda sheegaysaase awood soo uma lahan inay ka hortagto misna ogaato halka qaraxyadaas lagu sameynayo misna lagu weerarayo intaba shacabka Soomaaliyeed ayaana su'aashaasi isweydiinaya wixii ku soo kordhay saaxiibayaal arrimahani oo idilna barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa